waxaa si rasmi ah u furmay shirweynaha wadajira beelaha dega gobolada galbeedka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Shirkaas oo maalmihii u dambeysay qabanqaabadiisu ay si aad looga dareemayay magaalada Boorama ee xarunta gobolkaasi Awdal. Shirweynaha wadajira beelaha dega gobolada galbeedka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxaa ka soo qayb galay wafdi ballaadhan oo hogaaminaya ugaaska guud ee beelaha dega gobolada galbeedka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ugaas Cabdirashiid Ugaas Rooble Ugaas Toodi ay weheliyaan hoggaanka dhaqanka ee gobolada galbeedka Jamhuuriyadda Soomaaliland, siyaasiyiin, aqoon-yahan, dhalinyaro, haween, qurbajo iyo mas'uuliyiin kale oo shirkaasi lagu soo marti qaaday. Ugu horreyntii waxaa shirkaasi si rasmi ah u furay ugaaska guud ee beelaha dega gobolada galbeedka Jamhuuriyadda Soomaaliland, Ugaas Cabdirashiid Ugaas Rooble Ugaas Toodi, waxaana ka dhawaajiyay dadkeen meel badan ay joogaan oo degan yihiin sida deegaanka Itoobiya, Somaliland iyo Djibouti way ku wada nool yihiin, qurbahana way ku nool yihiin. marka ilaahay ay noogu barwaaqeeyo. caafimaad Allah ina siiyo, mustaqbal wanaagsan Allah ina siiyo. ilaahay baan baryaynaa in shirkaasi midhodhaw fiican noo yeesho, wadajirkeennana ilaahay haynoo adkeeyo, barwaaqa Allah ina siiyo, muslimadeennana Allah inoo sii adkeeyo. xagga dhaqaalaha abuurka oo dekada ugu horeysana Allah inoo yareeyo. hadda kadib waxaan ku dadaali doonaa annaga iyo madax dhaqameedyaduba in aan horumar ka shaqeyno haddii ilaahay yidhaahdo. waxaa kaloo iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah hoggaanka dhaqanka ee gobolada galbeedka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo iyagu shirkani kaalin mug leh ka qaatay. waxaan u taaganahay ee koobaad waa adkeynta midnimada beelaha Galbeedka. waxaan kaloo noo soo adkeynta nabadgelyada oo iyadana nabadgelyada laga maarmay oo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku daacaysan jiray allahumma innaa nas'aluka an wal iimaan. waxaan rajaynaynaa xero yar inaan iskula imanin. waxaan rajaynaynaa in dadaalka iyo tacabka iyo waqtiga dheer la soo geliy laga marnayo. waxaan filaynaa halkaa qofka kulooyinka laga joogtay halkaa guriyo yaalla guriyo kaafiya yaalla shidaalkii baan u fadhinaa. waxaan rajaynayaa sidii loo soo saari lahaa dadkuna isku xidhnaan lahaayeen horumarna loo samayn lahaa. maantagaas ku dhimday dhammaan galmuslimiin jooga. الله ينقى أبوه ينقى لكن وحلا هيورانو أتكيليا أوريتي تريد كويس هاي أنت أورينا أرجو ترى كتر داريا مذنبه الدين مذنب الله يشو مرقا وروح قوالي مرها وروح قوالي مورلا وروح بي قوالي أرجتنا لي أيوة وروح قوالي مذنبه si kastaba arintuu haatee shirweynaha ka furmay dooxada gob la magac baxay shirka wadajir isla markaasina ay ku shirayaan beelaha dega gobolada galbeedka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu halkaasi ka socon doonaa muddo 5 maalmood ah. waa Maxamed Xasan Ismaaciil Beere, telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV magaalada Boorama.